iyadoo gebi ahaanba kacdoonka ka socda gudaha dalka Soomaaliya maalmihii u dambeysay uu sii ballaadhanayay kaasoo kooxaha Al-Shabaab oo muddo 15 sano ka badan ka talinaya gudaha dalka Soomaaliya intii safar badan lagaga soo horjeedo. Kooxaha Al-Shabaab ayaa la soo sheegayaa inta badan firxadkoodii in magaalooyinka waaweyn ee dalka Soomaaliya qaybo ka mid ah gobolada ay soo galayaan iyagoo caruurahoodii si dhuumaal ku soo gelinaya gudaha magaalooyinkaas waaweyn. Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shalayto ciidanka jiida jooga ee ka dagaalamaya gobolada kala duwan sida gobolka Hiiraan, Galguduud iyo sidoo kale gobolada Bay iyo Boqol uu kula hadlay khadka taleefanka kaasoo ciidanka uu dhiirigeliyay una sheegay inuu soo gaarsiin doono gargaar kala duwan iyo agab sanadeed. Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale hay'adaha kala duwan ee caalamka iyo sidoo kale deeqaha kuwa bixiya luqado kala duwan kula hadlay kaasoo u sheegay Soomaaliya waqti xaadirkan u baahan tahay garab istaag kaasoo sanad ciidan ay sidoo kale gurmadka abaaraha ee shacabka lagu caawinayo. Dhanka kale xildhibaano si toos ah iyagu isku abaabulay ayaa goobaha furimaha tagay maanta iyagoo uu ka mid yahay xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo koonfur galbeed ka soo jeeda aqalka baarlamaankana ka mid ayaa sheegay in Al-Shabaab la iska celin karo kuna booriyay ciidanka inay furimaha buuxiyaan kaasoo si guud uga hortagaan. Dhanka kale Jubbaland ayaa maalmihii u dambeeyay oo loola guud waday kaasoo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu shalay sheegay inuu furimaha tagi doono ciidankana si guud u abaabuli doono kana xoreyn doono deegaanada Jubbaland ay ka haystaan. Inta la ogsoon yahay Al-Shabaab kooxaha ugu waaweyn iyo sidoo kale taliyaashooda qaybo ka mid ah iyo madaxdooda ayaa ku nool Jubbooyinka ay ku doorteen dhul kheyraad badan inuu yahay muddooyinkii ugu dambeeyay 15 sanahana Jubbooyinka intooda badan ay gacanta ku hayeen. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa wacd ku maray inuu soo afjari doono muddo kooban kooxaha Al-Shabaab sidoo kale tana laga arkayo goobaha guud ay ka qabsadeen iyo guulo maalmihii u dambeeyay ay ka gaadheen. Gobolka Hiiraan ayaa intiisa badan la xoreeyay maalmihii u dambeeyay iyagoo degmooyinka Moqorri oo muddo dheer ay haysteen kooxda Al-Shabaab in ka badan 15 laga xoreeyay. Sidoo kale gobolka Galguduud ayaa isagana meelo fara badan laga xoreeyay kuwaasoo caasimadda iyo sidoo kale meelaha ku xeernaa inta badan ay Al-Shabaab ay ka talinayeen. kooxaha Al-Shabaab ayaa la sheegayaa maalmihii u dambeeyay firxadkooda inuu magaalooyinka ku sii badanayo iyagoo dhalinyaro ka mid ahna ay isku soo dhiibayaan dowladda iyo ciidanka qaranka. Taliyoodan ayaa sidoo kale jiida goobaha kala duwan maalinta ku xigta ku sii boorinaya ciidanka qaranka Soomaaliya isagoo agabka saanada iyo sidoo kale diyaaradaha duuliye la'aanta ee loo yaqaan droneska ay si toos ah u weerarayaan kooxaha Al-Shabaab meelaha ay sida tooska ugu sugan yihiin kana dagaalamayaan. Dhanka kale caalamka intiisa badan ayaa ku baaqay Soomaaliya hadda inay tahay xilliga ay xoreyn lahayd iyadoo la joogo Soomaaliya inay iska dulqaado cadawga muddada 15 sanaha ka badan ka talinayay goobo fara badan oo Soomaaliya. Shacabka intiisa badan ayaa ku boorinaya maalmihii u dambeysay dhulka cusub ee la qabsaday in la gaarsiiyo saanad iyo sidoo kale deeq taasoo ay ka mid yihiin raashinka noocyadiisa kala duwan iyo dawooyin maadaama oo shacabkan Al-Shabaab ay ku haysteen muddo dheer aysan helin wax dadaal gargaar ah kaasoo bini'aadnimada dhankiisa ku saabsan. Dhanka kale kooxda Al-Shabaab ayaa maalmihii u dambeeyay soo duubayay warar markaas daba martan kuwaas oo saxaafadda intooda badan kaga hadlayeen ayna u sheegayeen shacabka inay isdejiyaan maamulkii hore iyo qaabkii loola dhaqmayeen ay wax ka bedeli doonaan, balse shacabkan oo ah mid daalay muddo dheerna soo rafaadsanaa ayaa ka diidan midaasoo shacabku uu ka biyo diiday dagaalkan oo aan sii wadaynaa ay wacd ku mareen. Kooxaha macusleyda ayaa maalmihii u dambeeyay wacdare ka dhigayay furmaha hore ee dagaalka